السلام عليكم أصحابتي فيد وناكسن عاوة وحن كسوقنا هاي حرونتا DYE عاوة مناسبة وحن كسوق سنتا هاي ومناسبة بندق دقن ورها دير دبدي كتيميد وأي isku xilqaantay inay dhaqankeeda hooyo ay ugu soo bandhigto dhalinyarada qurba joogta magaalada Garowe ku sugan uma baahna marka dadka inta badan ka soo qayb galay waa dad qurba jooga marka maadaama aan ka tirsanahay dadka oo qurba joogta aslaatay dhalinyarada aslaatay maqli jiray marka waxa weeye eventigan nuxurkiisa waxa weeye inaad ku faatid dhaqankaaga hooyo السلام عليكم مقعيقة وشكري أبقادر عبد الله الجنقلي عاوة من دقي برنامج وكساب سنية هاي دخل سو علس. It's something that inspired me to want to showcase how I appreciate my dakhal. How I can showcase this is through art. So I have all these different pieces and alhamdulillah it's something that I haven't had the time to do previously. Before, back in Canada, you're always on the go, go, go. I feel as if coming back here in Somalia, you have the time to actually live. Alhamdulillah, I've been here for 3 months and I've been inspired creatively. Alhamdulillah, the reason why I came here to Somalia is because I've always wanted to come. And I finally had the chance to take advantage of this opportunity. My mother is here with me, alhamdulillah, my sister is here with me. So it's a blessing. Everyone who is away, anyone who's abroad, all diaspora, I would say come back to Somalia, have your experience. As long as you have an open mind, a positive mind, you're going to have a wonderful experience. Alhamdulillah, I've had a wonderful experience. Okay, elementary dhiganaysa yaa waxaan u soo gaday qalabka artska qofka waxa uu ku fiican yahay is not the arts ayada waxay tahay designer ama ku fiican jaamacadda markay dhiganaysay waxa aan ogaaday gabadheeda inay designer ku fiican tahay marka Chinese bay idin tahay imaada wadankiina ka faa'iideysta ilmihiina keena idinka imaada waalidka soo guur ilmuhu ayaga imaanayeen taas muhiim ah رويدة maxaa sameynaysaa صورتان waxay sawiraya wallahi diirigelin buu noqonaysaa in dadka hidiga dhaqanka ay si fiican u sii xoojiyaan si fiican وإسلكتين meesha tartan baa ka socda dhaqankii ayaan baraan maaraysaa la xasuusanaya halkan waa agab maxaa loo jeedaa agab dhaqameedka Soomaaliyeed magacii iyo maaragtay muuqaalkii baa isku qabanaya miya waa gartay imsa keentay marka anigu waxaan taan filayay ka yar baan keenay hay imsa keentay koyto dhibcood saaxiibka kula tartamaya sawirada waxaa iga khaldama qaarkood waqtiga ciriiriya ma garan marka waqtiga lagu qabtay miya waqtiga la qabtay saas aslay waqtiga dhigta kaan marka aniga ninkan saaxiibkii ciyaarayaan dhigmay waxaan loo qabtay hal minute aniga saaxiibkii kullu ciyaartii midnimo guulaysan raja ayaan كلي waxaan jeclaan in aan labada mid guulaysto laakiin ma isdhacanay dadkiina qurba jooga soo laabto wadankiina wax keenana wax soo celiyo wax la yimaado meesha that's you going throw in there soo noqo this way is that art ma kaliya waxa way dad dhalinyaro isku imaanayo oo horumarin rabo oo wax soo kordhinayo insha Allah magacaygu waa Abshir Jaamacataadko waxaan kamid ahay dhalinyarada hal abuur kale farshaxanka iyadoo gabadha ay ku dhiiranaatay inay soo bandhigto bulshadana ay tusiso hal abuurkeeda aad baan u faraxsanahay marka badina dhaqankii lagu dhiganaado nooleeyo waxa dadka nooleyn karaan waa nagana dhaqankeeda alla yasmin ka imaaday hadda laakiin loo kala noqday waxaan joogaa hadda 4 bilood ku dhawahay haye mar dhawaa soo guurayaa sasiya alaabihii yaray dhinaca xagga ka timid الله كويت هيا سوعية شو اخبارك؟ تمام الحمد لله شو علومك؟ تمام شو مسوية؟ بخير صورك عاقبة هالشيء هيا صورك أنا حالي مركي أنا اللي أركبها للصورة